هاي soo dhawaada maanta waxaanu sharxi doonaa film Amerikaan oo drama iyo dambi ka kooban oo lagu magacaabo Us daawasho wacan sanadku waa 1896 goobtuna waa magaalada Santa Cruz Mareykanka Adi iyo waalidkeedu waxay waqti ku qaadanayaan duleedka xeebta Santa Cruz Adi waxay fiirfiirinaysaa waxyaabaha lagu ciyaaro waxaanay la yaaban tahay ficilada ay dadku sameynayaan ee hareeraheeda ka dhacaya mar ay hooyadeed ku maqnayd musqusha aabaheedna uu ku mashquulsanaa ciyaar Adi way cilootay waxaanay istiri soo warwareeg ugu horeyntii waxay aaday xeebta kadib waxay aragtay guri game ah oo gudihiisa lagu ciyaaro waana gashay waxa si lama filaana u damay leerkii Adina waxay ku dhexluntay guri wada muraayada waxaanay si lama filaana ula kulantay qof iyada u eeg kadib waxa layna tusayaa waqtigan la joogo family ka kooban 4 qof oo u socda magaalada Santa Cruz ee gobolka California Adi imika way weynaatay waana hooyo dhashay 2 caruura Zora iyo Jason kadib markii saacado jidka ku soo jireen waxay soo gaareen guri ay Adi yaraantii ku soo kortay oo Santa Cruz ku yaala Gabby Wilson oo ah Adi ninkeeda ayaa u sheegay Adi iyo ciyaalkaba inay habeen dambe waqti ku soo qaadan doonaan xeebta Santa Cruz Adi waxay soo xasuusatay habeenkii ay gashay guriga lagu ciyaaro iyo wixii ka raacay waxay soo xasuusatay markii guriga ka soo baxday ee hadalku ku dhagay iyo qaabkay uga soo kabatay imika ma doonayso inay mar kale ku laabato laakiin Gabe ayaa ku qanciyay intaa kadib reerkii waxay u safreen xeebta intay jidka ku sii jireen way mashquulinayeen waxaanay dhageysanayeen heeso waana kaftamayeen mar waxay dariiqa ku arkeen qolyaha caafimaadka oo qaadaya nin gaboobay oo laabta dhiig kaga yaalo markay yimaadeen xeebtii waxay la kulmeen saaxiibadood Josh Taylor iyo Kitty Taylor iyo 2 hablood oo mataan ah oo dhaleen iyagoo labadii family-ba xilliga badda fadhiya Jason ayaa kacay waxaanu tagay musqusha uu yaabay kadib markii uu arkay ninkan meydka ah ee uu eeg ninkii ay ku soo arkeen markii dariiqa soo socdeen Adi waxay ogaatay inuu Jason maqan yahay waana cabsatay waxay in badan raadisaba ugu dambeyntii way heshay waxaanay go'aansadeen inay gurigii ku laabtaan habeennimadii Adi waxay u sheegtay Gabe inay yaraanteedii la kulantay qof iyada u eeg si kastaba ha ahaatee Gabe muu rumaysan iyagoo wada hadlaya waxa tagay nalkii kadib waxa uu yimid Jason waxaanu waalidkii u sheegay inuu soo arkay reer dhan oo wadada gurigooda ka baxda taagtaagan waxay ka eegeen daaqada waxaanay arkeen qoys 4 qof ka kooban oo isdhinac taagan Zora ayaa iyaduna soo baxday Adi iyaduna xsan ayay Zora ka qaadatay teleefankeedii waxaanay wacday booliska Gabe-na wuxuu baxay banaanka waxaanu ku yiri naga hor dhaqaaqa laakiin cidna lama hadlin Gabe wuxuu qaatay bud waxaanu mar kale u baxay banaanka markan waxay u soo dhaqaaqeen dhinaciisa wuu baqay wuxuu soo galay gurigii waxaanu hoosta ka xidhay albaabkii si kastaba ha ahaatee dadkii banaanka taagnaa waxay heleen furayaashii waanay soo galeen guriga qoysku way yaabeen kadib markay ogaadeen in dadkan u soo galay ay iyaga u eeg yihiin waxay reerkiisu u geeyeen qolkoodii hurdada iyagoo ku cabsi gelinaya maqas iyagiina way soo hor fadhiisteen Jason qofka u eeg waxa lagu magacaabaa Pluto waxaanu jecel yahay dabka Zora ta u eeg waa mid arxan daran oo jecel inay dadka ciqaabto waxa la dhahaa Ambry Gabe-ka u eeg waa Abraham iyagana waxa hogaaminaya Adi ta u eeg waxaana lagu magacaabaa Red waa ta kaliya hadli karta waxaanay leedahay cod weyn oo xabeeba oo laga cabsanayo Red waxay u sheegtay inay yihiin harkoodii laguna magacaabo The Tetherid ama kuwa la xidhay waxay nafta la wadaagaan kuwa u eeg waxaanay u noolaayeen sida harkooda intay noolaayeen oo dhan laakiin waxay hadda u yimaadeen sida isku sii deyn lahaayeen Red waxay qoyskii uga sheekaysay qisada gabadh yar iyo harkeeda iyadoo u jeeda iyada iyo Adi markii Adi cunayso cunto diiran oo wanaagsan Red waxay cuni jirtay hilibka bakaylaha Adi markii yareed waxa la siin jiray caruusada ay ku ciyaarto halka Red ay haysatay caruusado bir ah oo faraha ka jeexa Adi waxay jeclaatay Gabe waana guursatay laakiin Red waxay ku qasbanaatay inay guursato Abraham maadaama uu yahay Gabe ka weeg sidaas la mid ah Adi markii dhashay curadeeda ay jeceshahay ee Zora Red waxay dhashay dad qalato dadka disha Ambry ugu dambeyntii Red waxay u sheegtay in markay Adi caruurta dhalaysay ay helaysay dhaqaatiir ka caawisa dhalmada laakiin iyadu ay gacanteeda iskaga umulisay Red iyo qoyskeedu waxay u yimaadeen siday noloshan Adi oo kale ugu noolaadaan laakiin siday ugu noolaadaan waxa waajib inay dilaan asalkooda kadib markii sidaa ugu sharaxday Red waxay u sheegtay Adi inay gacmaheeda ku xidho kursiga ay ku fadhido Abraham wuxuu Gabe u jiiday qol kale Ambry waxay eriyatay Zora halka Pluto uu ku qasbay Jason inuu la ciyaaro dadkan family-ga u eeg qorshahoodu waa inay kala qaybiyaan qoyska argagax galiyaan kadibna dilaan Pluto iyo Jason waxay qol yar ku ciyaarayaan dab Pluto wuxuu markii ugu horeysay Jason tusay wajigiisa Jason wuu naxay waanu baqay Zora waxa wali eriyanaysa Ambry markii qabatay waxay la soo baxday maqas waxaana istiri ka taag laakiin waxa ka qabtay nin Zora waxay baxsatay intay Ambry ku jeeday ninka ay dilaysay dhanka kale Abraham wuxuu feer ku suuxiyay Gabe kadibna wuxuu ku xidhay bac waxaanu saartay doon
geeb wuxuu bacdii ka dalooliyay dalool yar kadib wuxuu arkay inay beri daba taalo Abraham kabacdi waxa si lama filaan u istaagtay doontii isagoo fursadan ka faa'iideysanayay geeb wuxuu ka soo baxay bacdii waxaanu birtii xagga dambe kaga dhuftay Abraham waanu ka tuuray doontii sida markuu Abraham biyihii ugu dhacay waxa dhaqaaqday doontii geeb wuxuu isna ku dhacay biyihii geeb wuxuu arkay inay doontii istaagtay waanu fuulay wax yar kadib Abraham ayaa xagga dambe ka soo weeraray laakiin wuu iska celiyay wuu dilay waxaanu ku tuuray biyihii intaa kadib geeb wuxuu doontii u kaxeeyay dhinaca gurigii dhanka kale Jason wuxuu ogaaday inuu Pluto ka daba sameynayo ficilada uu sameynayo isagu kadib wuxuu Pluto ku mashquuliyay Later uu gacanta ku hayay waxaanu ku guuleystay inuu ka baxo qolkii ay ku jireen kadib isagii buu ku xidhay Red ayaa sanqadh maqashay waxay u tagtay Pluto waxaana ka furtay albaabkii kabacdi waxay guriga dhexdiisii ka raadisay Jason intaa kadib waxay heshay caruusadahay aadi ciyaalnimadii ku ciyaari jirtay waxaana ka wada jartay madaxa aadi wali waxay ku gacmo xidhan tahay miiska waxay aragtay bir meel u dhow taala waxay tiigsatay birtii waxaana ku guuleysatay inay iska furto katiinadii intaa kadib waxay raadisay Jason markay heshay way yaaceen waana ka baxeen gurigii Zora waxay ka heleen jidka gurigooda ka baxa geebna wuxuu yimi isagoo doontii wada reerkii waxay wada koreen doontii waxaana u suurta gashay inay baxsadaan dhanka kale maray family reer Taylor joogeen guriga Kitty ayaa maqashay sanqadh waxaana ku tiri Josh soo eeg waxa sanqadhaya waxa si lama filaan ah soo baxay qof walba qofkiisii u eegaa waxaana ilbiriqsi ku wada dileen reerkii wax yar kadib reer Wilson ayaa soo gaadhay gurigii aadi waxay caawimo weydiisatay Joshkii u eekaa markuu albaabkii ka furay waxay garatay inaanu Joshkii saxda ahayn waxaanay madaxa kaga dhufatay bir ay sidatay laakiin waxba muu noqon aadina isla markiiba waxa jiitay kuwii kale guriga ku jiray geeb iyo ciyaalkii banaanka taagtaagan waxa ku soo dhaqaaqay Joshkii shabahay ciyaalkii way yaaceen geebna wuxuu cararay dhinaca ciyaalku yaaceen ma aha dhinaca kale si uu ciyaalka uga mashquuliyo Josh intaa kadib ciyaalkii waxay galeen gurigii sidii hooyadooda soo raadiyaan Zori waxay qaadatay birta ciyaarta golfka lagu ciyaaro sidii wax iskaga difaacdo iyagoo gurigii dhex taagan waxay maqleen aadi oo ka qaylinaysa dabaqa sare markii kor fuuleen waxay arkeen hablihii mataanaha ahaa ee reerka oo meydkoodii yaalo dhulka kuwii u eekaana ay ku ciyaarayaan qolka dambe ee guriga silma filana mid kamid ayaa ku soo carartay Zora laakiin waxay ku dhufatay birtii waxaanay ka dhacday dabaqii kadib waxa soo weerartay mataanteedii kale dagaal yar kadib Zori iyadiina weydiishay Kitty tii weekeed waxay ku jirtaa qolka hurdada aadina waxay ku xidhatay sariirta dhanka kale geeb wuxuu socdaa dhinacay doontu taalay Joshna uu daba socdaa intaa kadib geeb wuxuu qiiq ku shidayaa Josh kadibna wuxuu ku dilayaa gaadmo Kitty waxay daaqada ka aragtay geeb oo dilaya Josh iyadoo eegaysa waxa sikadiisa xagga dambe uga soo weeraray Zora laakiin Kitty way iska difaacday iyadoo Zora dhulka dhigatay oo isla dil waxa badbaadiyay Jason waxaanu madaxa kaga dhuftay bir reer Wilson waxay wada fadhiisteen qolkii fadhiga waxaana isla gorfeeyeen masiibadan haysata nambaradii askarta oo dhan waa mashquul waxa shideen TV-ga waxaanay arkeen in mashkiladani ka jirto wadanka oo dhan warku wuxuu sheegay in dadka weega ay ka soo baxeen bilicadaha dhulka hoose iyagoo maqasiisita kadibna ay dadkooda asalka ah tooriyeynayaan ilaa ay ka dhintaan waxay telefishinka ka arkeen iyagoo gacmaha is wada haysta kadib markii uu qof kastaaba soo dilay qofkiisii u eekaa maadaama ay mushkiladani ka jirto wadanka oo dhan aadi waxay ku talisay inay tagaan xuduudka halkaana Mexico ka galaan reerkii iyagoo gaadhigii fuulay oo isla dhaqaaqa waxa hor istaagtay Ambry Zori waxay istiri gaadhiga jirsii laakiin Ambry waxay ku booday gaariga dushiisii intaa kadib Zori waxay markaliya qabatay breega waxaanay Ambry ku duushay keymaha dhexdooda halkaasaanay ku dhimatay inta kadib reerkii waxay ka tageen meeshii inta jidka ku sii jireen waxay meel kasta oo istaagaan ku arkayeen dad badan oo dhintay mar waxa ka soo horbaxay gaadhi ku gubanaya wadada bartankeeda waana istaageen Jasonkii uu eekaa Pluto ayaa soo baxay aadi ayaa u degtay si ay ula dagaalanto kuwii kalena gaadhigay ku hadheen wax yar kadib Jason ayaa ogaaday inuu Pluto dabin qorsheynayo waxaana u sheegay reerkii inay ka wada degaan gaadhiga Pluto wuxuu doonayay inuu reerka ku qarxiyo gaadhiga intaanu Pluto dabkii shidin Jason ayaa xasuustay in markii hore kulmeen Pluto uu xarakaadkiisa ka daba sameynayay kadib wuxuu bilaabay inuu dib u socdo tani waxay sababtay inuu Pluto isna gadaal u socdo sidii uu socdeen Pluto wuxuu ugu dambeyntii gaadhaya gaadhigii gubanayay waxaanu ku dhimanayaa barta laakiin intaa kadib Red ayaa meel ay isku qarinaysay ka soo baxaysa waxaanay qaadanaysaa Jason kadib aadi ayaa ka daba ordaysa markii xoogaa raadisay waxay arkaysaa dadkii fiiga ahaa oo leen dheer ku jira gacmahana is haysta oo ku taxan xeebta kadib waxay tegaysaa goobta yaraantii gashay markii gudaha u gasho waxay helaysaa albaab dhulka hoose u sii furan albaabka markii sidaa u furto waxa ka soo baxaya raax way gelaysaa albaabkii waxaanay gudaha u sii gelaysaa dhismo weyn oo dhulka hoostiisa ku qarsoonaa waxay sii raacaysaa wiish waxaanay tegaysaa hool weyn oo qolal badan hareeraha ku leh rah badan ayaa dhex yaacaya hoolkan waxay mid ka mid ah qolalka oo fasal lamooda ku arkaysaa Red waxa samuurada ku sawiran dadka fiiga ah oo mudaharaadaya gacmahana is haysta aadi waxay weydiisay halkii geysay wiilkeedii laakiin Red waxay bilowday inay aflagaadayso bilaadanka
dhaleecayn kadib waxay u sheegtay sirta ka dambaysa jiritaankooda. Red waxay u sharaxaysaa in dadkan lagu magacaabo The Tethered ama harku ay yihiin robotyo gacan ku samaysa oo ay dowladda Mareykanku u samaysay si ay basharka caadiga ah ugu xakameeyaan iyagoo fushanaya danahooda khaaska ah. laakiin tijaabo kadib mashruuc wuu fashilmay. Tetheredkana waxaa lagu dayacay boqolaal sano dhulka hoostiisa. waxay sanadahaas oo dhan si aan ujeedo lahayn u sameynayeen ficilada ay dadka asalkoodu sameeyaan, waxaanay ku noolaayeen oo cunayeen hilibka raha. laakiin habeenka ay Red iyo Addie kulmeen ayay wax walba isbedeleen, sababna u noqotay inay soo baxaan. Tetheredku waxay arrintan qorsheynayeen sanado badan, waxaanay hogaamiye ka dhigteen Red oo kuwa kale ka duwan. waxay doonayeen inay ka argoostaan dadkooda asalka ah, laakiin waxay qorsheynayeen taa wax kala muhiimsan. waxaanay rabeen inay sameeyaan wax caddaynaya jiritaankooda. iyagoo yoolkaa ka duulaya waxay go'aansadeen inay ku cabiraan dareenkooda jiritaan inay gacmaha isqabsadaan isna barbar istaagaan. Addie habeenkii ay la kulantay Red kadib, waalidkeed waxay geeyeen fasal lagu barto qoobka ciyaarka ballet. sida awgeed Red waxay sameynaysay ficilada ay Addie samayso waanay jaasisay sidoo kale. sida iyadu sheegtay, jaaskaasi wuxuu ahaa kii badbaadiyey. intaa kadib Red iyo Addie waxa dhex maray dagaal u qaab eeg qoobka ciyaarka ballet. Red waxay iska difaacday weerar kasta oo ay Addie ku soo qaado, waxaanay lahayd gacanta sare markastoo ay isdagaalaan. intaa kadib Red waxay dhex carartay hoolkii weynaa. Addie-na waxay eryatay iyadoo gacanta ku sidata bir. dagaalkoodii wuu sii socday waanu sii kululaaday. sikadiisa Red ayaa xagga dambe ka soo weerartay Addie, waxaanay istiri maqas ka taag. laakiin Addie ayaa ka gacno horreysay, waxaanay birtii ka gelisay caloosha. markay Red sii dhimanaysay waxay u fooriday sidii ay u fooriyeysay markii koobaad ee ay is arkeen Addie. tani waxay kasii xanaajisay Addie, waxaanay cunaha kaga qabatay katiinadii gacmaha kaga xidhnayd, waanay dishay. intaa kadib waxay heshay Jason oo meel ku dhuumanaya. labadoodiiba waxay u soo baxeen bannaanka, waxaanay heleen Gabe iyo Zora oo ambalaas ku dhuumanaya. intaa kadib reerkii waxay ka haysteen isla ambalaaskii, iyadoo Addie gaariga wada. waxaynu arkaynaa iyadoo soo xasuusanaysa habeenkii ay la kulantay Red. habeenka Addie iyo Red waxay isku hor istaageen weji ka weji. Red waxay Addie qabatay cunaha waanay suuxisay, kadib waxay geysay qol, waxaanay gacmaha kaga xidhay sariirta madaxeeda. intaa kadib Red waxay xidhatay dharkii Addie, waxaanay gashay booskeedii adduunka. habeenkaasna Addie waalidkeed waxay guriga geysteen inantooda tii u ekayd ee fayga ahayd. tani waxayna tusaysaa sababta ay Red u ahayd ta keliya ee Tetheredka ka hadli kartaa, ka fikir duwan, horseedkana ka ah kacdoonka. ta kale Red codkeeda waxaa xabeebta u yeelay waa dhaawac soo gaadhay markii taweegi cunaha ku dhufatay, markaasoo ay ka dhaawacantay qayb ka mid ah habdhiska neefsiga. sidoo kale tani waxay caddaynaysaa sababta ay Addie yaraanteedii u hadli weyday markii laga helay xeebta agagaarkeeda. sidaynu hore u soo sheegnayna dadka u eegi ma yaqaanaan sida loo hadlo. muddo kadib Addie waxay baratay sida loo hadlo, waxaanay noqotay qof caadiya oo qoslaya, wax jeclaan kara, waxna nici kara, waxaanay ilowday inay ahayd robot macmala. filimku wuxuu ku dhammaanayaa iyadoo layna tusayo dadka robotyada ah oo gacmaha is haysta oo saf dheer ku jira, samaynayana calaamadda ay bini'aadanku shucuurtooda ku cabiraan ee loo yaqaano human chain. subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aanu filimada noocan u soo badino. like-na noo saar si ay channelka dad badan u arkaan.